الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله رب العالمين كأعلن له ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآمن النصوص xasuusintaas qofka muuminka iimaanka leh anfacaysaa bay ahayd. waxaa marka qofka muuminka la xasuusinaya shayga ugu horeyn la xasuusinayo ilaahay baa inoo sheegay aayadda ku xigta isla aayadda ku xigta ayaa ilaahay inoo sheegayaa shayga ugu muhiimsan ee mar walba bini aadamka loo baahan yahay in la xasuusiyo waa maxay. waa in qofkan la xasuusiyaa ayaa abuuray uu samaystay allihii samaystayna muxuu kuu samaystay allihii ku abuuray ee ku dirsiiyey ee nolosha adduunyada maaragtaana kugu deeqay maxaa ilaahay jalla wacala u kaa rabaa. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun baa ilaahay jinna iyo insi maan abuuran haddaan abuurtay baa ilaahay waxa keliya loo abuurtay waa inay aniga iyo caabudaan ee aniga i gartaan. oo qofka bini aadamka walaadkiisa sharaftiisu waxay ku jirtaa ilaahay jalla wacala garashadiisa. qofka bini aadamka khasaarihiisa iyo dulligiisuna wuxuu ku jiraa allaha abuuray haddii uu gara waayo qofka bini aadamka u khasaaraya. marka bini aadamka shayga ugu horey la xasuusin waa maxay? waa ilaahay caza wajalla inuu barto, uu caabudo, uu raaligeliyo, uu ka boqo wixii wanaag ilaahay ku farayna aad la timaadid wixii xumaan ilaahay kaadaydana aad ka reebanaad. maqsadka leeloo abuuro waa cibaado. cibaadada shayga ugu horeeya ee maaragtana ku halmaamin kara waa maxay? waa maxaa? taana ilaahay wadabo dhigo wuxuu yihi maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yutcimuun baa ilaahay. insaanka asaga risqiisii ma saarin, isaga lama saarin albaabadiisi oo dushiisa lama saarinoo lagama rabo inuu isagu asaarsaaqo arigana inayna guudiyaana waxay qabtaan kama rabin baa ilaahay. haku mashguulin maxaan cunaayo caloosha maxaan geliyaayo ubadka maxaan siiyaayo. waxaa laga rabaa inaad mar walba adigu hadaf aad ka dhigataa inaad ilaahay caza wajalla daacadiisiiyo cibaadadii uu ku abuurtay aad muhiimadaada koobantood ka dhigatid aad ilaahay amarkiisa ku dadaasha. shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibiyana waa maxay? waa ilaahay macrifadiisa. hadda dadku inta ilaahay ay bartaan ayay ilaahay adeeci karaa. hadda bini aadamku inta ilaahay ay adeecaanna ayaa ilaahay noloshooda adduunya iyo dooda aakhira barakay. nolosha bini aadamku kuma xidhna lacag. hagaaga nolosha bini aadamku lacag kuma xidhno. ashyaa badan iyo adduunye badan qofku urusadana kuma xidhno. nolosha bini aadamka adduunkan iyo aakhira inay hagaagtaa waxa ilaahay ku xidhay inuu bini aadamka noloshiisa laga helaa addoonnimo. addoon ilaahay noqo. kulli kamaa uriidu aquulu laka kamaa turiid baa ilaahay. sidan aniga aan doonaya haddaad adigu aad ii yeeshid sida adigu aad doonaysa annaga aan ku yeelana baa ilaahay kula yidhi. waad baahan tahay, rasaaqad baad u baahan tahay, amni baad u baahan tahay, ya nolol fiican baad u baahan tahay, farxad baad u baahan tahay, amni iyo raaxaad u baahan tahay, ciz iyo sharaf baad u baahan tahay. waxayna kaa xumaadaana kaa halaabaan ka reebtid maadaama wanaag mar walba aad doonaysid. wanaagaagu wuxuu ku jiraa inaad garatid ilaahay caza wajalla. cabdii turiid wa ana uriid maa yakunu ila maa uriid in aطactanii fima uriidu aataytuka maa turiid wain casaytanii fima uriidu atcabtuka maa turiidu uma laa yakunu laka ila maa uriid baa ilaahay. ina aadanow adiguna waxbaad damacsan tahay baa ilaahay leeyahay. adiguna waxbaad doonaya sida adigu aada doonaysid ma noqonaysa arrintiiyo sida anigu aan doonay noqon baa ilaahay leeyahay. iraadadeena iyo doonisteenu ma soconaysa, doonista ilaahay ma soconaysa. wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah. ilaahay wuxuu leeyahay haddii aniga sida aada doonaya aada ii yeeshid sida adigu aada doonaysana annagaa ku yeelay. sida adigu aan kaa raba haddaad yeeli weydidna sida adigu aada doonaysid ma gaadhaysid baa ilaahay ku leeyahay. nolosha adduunkana waad ku gaadhaytaa nolosha. dariiq dhow weeyaan laynoo tilmaamay oo
وشرط الطريقة سبفك الضربين ومرماها هانتين ويش صغير هذو طريقة مر وكل بان مرقبين طريقة هذو مر وكل بان بقر هذيك وضد مر وكل بان المير هذو طريقة مر وكل بان كوين هذو طريقة مر وكل بان ركب هذه طريقة مر وكل بان يا أوين هذه طريقة مر وكل بان يا وقريب شروطا معددة الدنيا أن كحني كان يوفق لنا ربنا إلى أين الرماليوم ونبي محمد طريقة السبع عليه الصلاة والسلام طريقة إلهي معرفة الله إلهي واقعي ولنقدري آخرة واقعي ولنقدري عملك صالحا منفعتي سواقعي ولنقدري جنة أرسع واقعي ولنقدري ملائكة واقعي ولنقدري روح ذا بن آدم كنتكيس كنت واقعي ولنقدري شيء غيبي إن نقدر صوب باقي ملك وعن مشاهدات كأنهم مقدمين ملك جرك قيمة ملك جرك واحد قيمة هو يلا يروح له الدنيا الإمام مقدمين ملك واحد قيمة لو آخر لك صوية مخلوق الإمام مقدم نفع يضر منا ما يسوى كالنافع ضر والله ويا الإله الوظيف مادة ونرجع إلى العكس يقولها يورشدها يمارك تاني من الأشياء عملك صالح ثواب جسر وغيب ولا ينقدري الشيء اللي ينقدر يبقى قيمة له شيء اللي مقدر قيمة له تقول الدون كان الواحد قرحنا يوا بني آدم يسأل الواحد قرحنا يوا دينته وياه الدون كان هذه بني آدم لقوا يقول لما قدشوا بركات المدون تهديد واسكت درنيسا حافظها كنتني مكلمين جو مرة ثانية لو سنة 6 سنة كور والله قد حياة بل قصوا نقطين سيد قلت بعدين بني آدم كقيمة عليه بني آدم كقيمة أويلا أقلنا بني آدم كقيمة أويلا ورشدها بني آدم كقيمة أويلا لكن بني آدم كقيمة أويلا قارئة قروح لطمنا بني آدم كقيمة أويلا لعك الاستعمال السبني هذا قيمة أويلا ليا وحنا الدنيا يا رب إنك أبو حلينا هذه بني آدم وماشي كم هذا دوك القيمة بس بني آدم كان واحد أبو حلينا هو الدين الله قرب والرسول قال محمد عليه الصلاة والسلام راعى أمه وحق إلهي قرب وحقوق بني آدم كقرب وصل النفتار دون يسهرون ولا نسيد إلهي دون يؤون ولو إلهي هذه الأوبة بني آدم كان واحد قيمة أبو لنا يوديك واحد قرحية هذه يوديك ما مادة بني آدم واحد قرحية تعليم زبادك بقرحين بس تعليم قرآنك بقرحين الشيء هو هي بني آدم كان دون إنه نفسي سبقوا حيوان معي الله يقوم بالقرب قرب إلهي شاهدوا القرآن سيدي نبيين إلهي يقبر تيما لرغم كونه يقبر إلهي قالوا دائما الأنبياء عليهم السلام صدقتك بني آدم أي وحي أركي يلوها من السنة يلوها من السيئين أي نبي يدوها من السنة إلهي أبكيس عز وجل قصص فرمضان بان إلهي قرآن كان بقوشة قصص فرمضان قصص فرمضان بان إلهي قرآن كان بقوشة قصص النبيين وكا إلهي يحيي فرسيه الحمد لله ما أنتم مسلمين بأنها إسلام ماذا إلهي بين كل ليه ده بدل بعد جود نقولون لو دوش يضو إلهي ذيك عبده أربع عناد عبده يقار فرق عبده يقار بالضبع عبده يقار ببيه ساكن عبده قار بنبي عيسى ويدي مرة كانت مضفر استوى عبده إلهي كامل إن هذا قوة منا طعوا كان مسلم شهادنا مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه السلام
ayaa ilaahay weydiiye oo ka yidhi yaa rabbi kelmadaa kugu barya maaragtaana isii deedna markaasaa ilaahay yidhi yaa muusa waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah dhex kelmadaas markaasuu nebi muuse yidhi addoomaha ga wan wanaagsan kelmaddaa way yidhahdaan mar walba iyagu yeetu aniga ii khaasaan rabay yaa rabbi isii markaasaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku yidhi yaa muusa toddobada cer iyo toddobada dhul haddii miisaanka dhinaca kafal la saaro oo kelmaddaa dhinaca kale la saaro kelmaddaaba ka culus baa ilaahay kelmaddaa carabka marka laga yidhahdana waa islaam marka qalbiga ay gashana waa iimaan weeyaan marka jidhkeena ay ka soo baxdana waa camal saalixa weeyaan wayna wada socdaan ma kala hadhi karaa oo kelmaddani qaybta hore laa ilaaha waxbay diidaysaa ila allahna waa ihbaat waxay sugaysaa qudradda ilaahay caza wajal iyo facaaliyadda ilaahay jalla wacala waxaa makhluuqa dunyada dul yaalla oo dhan ha caabudin baa lagu leeyahay ha baryin ha weydiisan hana rajayn hana ka biqin ka baryada iyo cibaadada mutaystay waa allah dhib iyo dheefna ilaahay mooyaane cid kale kuma hayso wixii ilaahay qadaron baa addunyada ka dhici waxba ka dhici maayo wixii ilaahay bixiyo cidma mancin karto wixii ilaahay manciyana cidma bixin karto haddii ilaahay naxariis uu soo diro cidma celin karto haddii ilaahay naxariista uu qabsadana cid kama soo qaadi karto haddii ilaahay nolol kuu qadaro cid kuma dili karto haddii ilaahay geeri uu kuu qadarana cidna kuma noolayn karto haddii ilaahay faqiir uu kaa dhigo faqri kuu qadaro cidna qani kaama dhigi karayso haddii ilaahay qani uu kaa dhigana cid faqiir kaama dhigi karayso amarka ayaa iska leh allahu rabbulcaalamiin baa iska leh qisaskaa qur-aankay ku taala qisaska nebiyado dhan waa maxay waa didan makhluuq oo dhan bay nebiyadu nafinaya si dadku ilaahay ugu xidhmaan ayaa ilaahay inooga sheegay wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli ma nuthabitu bihi fu'aadaka wajaa'aka fi hadihi alxaqu wamawcidatun wadikraa lilmu'miniin baa ilaahay yidhi caza wajal qisaska nebiyada maxaa laynoogu sheegayaa maaha inaad akhrido rood iska dhaafta lama doonaye waxaa la doonayaa qisaskan qalbigeenna inay iimaanka ku sugaan baa la doonaya inuu qalbigeenna iimaanku galo laa ilaaha illa allah inay qalbiga gashaan la doonayo waxa bini aadamku ay doonayaan ma soconayo ee bal wuxuu ilaahay doonaya adduunyada ka dhacaya fircoon wuxuu isku dayey inuu nebi muuse adduunka uusan iman dhaqaalihiisao dhan wuxuu ku bixiyey muuse calayhi salaam adduunka inuunasan iman markaasuu islaam kastoo reer bani israa'iil oo caloosheeda ilma ku jiraan irideeda askari intuu u dhigay buu ku yidhi hadday wiil ay dhashana bereeya oo gowraca hadday gabadh dhashana inoo daayo bui innaga ku xayaadi doono ku nolan doonay ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiican yastadcifu taa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum inahu kana min almufsidiin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرعون إرادتي سوى محي إنه ويل كي ريب بني إسرائيل قلنا الشبه إنه قورعوا سيدا نيف حولها الله قال إنه قال لأننا هذا إرادتنا الإسلام لألا يأتي موسى عليه السلام maxay sidaa u samaynayaan fircoon waxay saxaradiiyo kahanadu u sheegeen reer bani israa'iil wiil baa u dhalan doona wiilkaasi sabab wuxuu u noqon doonaa mulkigaaga inuu suuliyo isagoo mulkigiisa u baqaayo buu yidhi yarkaa adduunka inuusan dhiman maxaa lagu samaynaa laga qabta adduunka inuusan dhiman waa iraadada makhluuq waa taas faraacintu zaman kastana way joogaan caalamka faraacintu fircoon u socday laakiin faraacintu way joogaan kuwii darsigaa loo sheegayo way joogaan adduunka fii kulli zamaan xaqu inuu yimaadana way ka dagaalamayaan laakiin xaqa ilaahay baa soo wada u keeni lahay markuu sida cadceeddu hadday soo baxdo oo basharka adduunyada ku nool isku yimaadaan cadceeddaas gacantooda ma ku celin karaa sida cadceedda bini aadamka awoodsan aysan u lahayn ay gacantooda ku celiyaan xaqa ilaahay hadduu caalamka yimaadana fircoon wuxuu isku dayey cadceeddaa ka soo bixi doonta ardi misr inuu gacantiisa ku celiyo laakiin sunnatullahi caza wajalla waa maxay inuu nebi muuse adduunyada intuu ku soo biiro waliba qasriga fircoonna 30 sano uu ka cuno kor ugu barbaaro wamaa tashaa'uuna iraadada mar walba bini aadamku ay leeyihiin ta ilaahayna ka saraysa doonistaada iyo doonisteeda ta ilaahay baa ka saraysa
نظام كان إنه واحد كسر النظام كإله نظام كبن آدم كإيش الله واركا لكن نظام كإله إيش هو طبعا إيش نظام كان بصر قال الله واركا بصر نظام كإله أين بصيرنا لوفنا بصيرنا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم بين أهله الله وحي الإلهامية قول له لي إنك يا موسى نوجي الناس وحيسو أقل كل حيسو هذا ربع ضمن بإلهي كيري لك عمارة تاني وليك كتب الله بقى أمر العلوس وين أمر كوبات ألقى كو حيسو الناس كنوجي لكن هو يتوبر قالوا جلسيه مر ربه وبيقول سوى العبسان الساعة ويعيد كيف العبد من هذا وليك المدون جه هذا ربع ضد بإلهي كيري صندوق ضد سفير دبته كتب بالوي وفوين بابته كل حكاية المير ما تقول كورا إلهي قدرتي سمرك وعالمك كظاهرين يوحوا استعمالها عقلك ابن آدم وحكه الإيمان إلهي استعمالها عقلك ابن آدم وحكه أفسد يا إلهي قدرتي سكظاهرين وحدتك أي استغراب سريع أي إلهي نصرتي سكظاهرين ومعيدي سكظاهرين والنظام كي سكسر الأحساني والنظام كعالمك إلهي ربعينه كبدل الماذا قال وحي على نرى بن إسرائيل يمتلت وعقد الصندوق يسمع ومعك دق ويل باندلو فرعون كانوا بقى يعني يقبوا رعي صندوق يسمع صندوق موسى يعني العالم كغبات مركاسو صندوق اوكي مركاسو اورر دوس خارب وقصر فرعون بتغي سماره كان سرته وشير وانا مسكين ضعيف الايمان واي النبي موسى ددك laga soo dhex saarayo وريب إسرائيل مسلمين بها يمركوا جهره وأولاد النبي يعقوب عليه السلام وذرية النبي كسر جديد وياه ما دام دينتي إلهي ومطلق لي أي كجستين ضعيفين إلهي وقصر للعدو وقصر فرعون بين حبوسا لدي العين بيس وواحد ماذا مسلمين يأتوك الجمهورون هيسويها لكن دينتي إلهي عز وجل لدنيني وايي لقوا عمل فلي وايي لقوا فكري وايي لقوا شقيني وايي المسؤولية إلهي نقول تلقى المسلمين أي فهم وايين دينك أي فهمين كليه وقت كذا الحال يقربها إلهي عدو ما تنوصل لدينا في كل بلاد وعيكس قصر كيف فرعون بويبي بوابين تبقى قدر حاجات صعبة وبعد السر عن السرقة أي فرعون شيء والأضاء معنا فرعون الظهور جاي ماي أنا كمان شيء بي سلام شيء يسيد لسان يسيد ده يحدق أنا وصلنا خف فرعون باور كي لقرسيه وبيقول لي بقى يسوع ده لكن يقول يسوع ده وانا كاي يجوجي هل كا حكم ده يقول هل كا أمر كوستاجن هذا كي بينه كمان الله أكبر أفكو تكتاجا يا بس سبحانك يا فرعون بيقول لي بقى وانا قاعد يريد مركز دبته لو صار هذا الكلام هو فرع مركز مسوع عشان هذا الكلام لا يحكي الله أكبر فرعون بيقول لي ما كشف اللي كان قرطه لكم قدرة الله صندوقي بيقول ذلك وبيجي بكتب فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بإلهي هذا كيف فرعون بهذا مرة اللي مركب هلان بالي وحياة كان صندوقي والمير وعياري أركب بالي مركز إلى الذين أنك هينا لأنه واحد نقدنا مقربين فرعون بكون هنا نعرف الرئيس مركب قصر اللي سوق لنا فرعون وكان أرض فرعون راكب ملفع موسى إنكم درجات وهرجوا وقد الله عليه بالي المير فرعون مركب ممكن بالي فرعون مركب وحول واسمي كي ملكي يزولين واسمي با سيدو قالتان يقولوا سيدا عليه ويفيرون ايمان ركب مر الله يمرق وقال ما عليه قف كلامه قالنا والمي الوجيس مر الله يمرق فرعون هو تسوى دغنا سيدي نو يقول يا ورسول الله قال تيجي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا مركز كان أنا جاي المين نقول ما يوبرون جلاي
adigaa ku noqdeen qaadabu ku dhibaalay kanaana ilmay noqon maayo qofkan dhan ee ujeedahay soo eegayeen is arkayso ilmay noqoni maayo adigoo ha ku noqda iska qaado waxay culimmadu idhahdeen ninka amarka ilaahay qaadan waaya amarka islaamtiisuu qaataa amarka ilmihiisuu qaataa amarka qabiilkuu qaataa amarka maaragtaane mudiirkuu qaataa amarka ilaahay hadduu qofku qiimayni waayana bini aadam kaloo sidii soo baa ilahay akoon uga dhigayo ugu fircoon amarka ilaahay buu diiday amarka islaamtiisuu qaatay waana taladu ku jabaya khalaas ilaahay wuxuu qadaray qasrigii fircoon intuu muuse keeno inuu muuse calayhi salaam 60 sano inuu qasrigaa fircoon ku dhex barbaaro ka cunteeyo u ka cabo la ilaaliyo weliba magaalada markuu galayana ciidan ay raacaan ilaaliyaan oo la yidhahda ninkani waa inankii boqorka aqalkiisa ku noolaa oo waa ina islaanta boqorka ayaa ilmahan haysato oo maaragtaan haysata oo dalkoo dhan laga yaqaano yidhahda waa quuso oo waa qasrigii aqalku ayuu boqorku ku noolyahay ilaahay qudradiisa fircoon wuxuu damacsanaa ilmaha inuusan adduunka iman ilaahayna wuxuu qadaruu go-aamiyuu faysaleeyey intuu muuse adduunka yimaado weliba qasriga fircoon inuu ku dhex barbaaro marka amarkee socda amarka fi kulli zaman wa fi kulli makaan ilaahay qudradiisa markuu daahirinayana wuxuu ku daahiriyaa shay bini aadamka caqliga uga khilaafsan 10 sano 60 sano qasriga fircoon markuu ku noolaa ayaa ilaahay ka saaray dalkii تصدق وقت درجتين العلماء مرة تفسير كذا كما قشة بعديها الميجا يا الله صاروا الرجال أيوة نقضي حكمة داري الله نعيه وما حب العلماء ذلك ما دام أقل بغر موسى كبر باري وحو كبر باري نرشل حياة التعيش نرجل عسم وكبر باري راحة بدن عمتب بدن وردب بدن مع بدن نصش بدن مركاسة إلى عيشنا وعلى وحودنا يا إنه النبي رسوله وكسر لتصومين ها وعلى هذا نرشي مقالة وكجل عقل كبقر كي هذا قصر وتوصل عليه شعير وسوجه أذيقها صبرته الشفقة دي رحمتها صبرته قال جرين لقمت روجر لقمت دقينه الرجال يا لقمت وعلى راعنا بالي وحوها وبضل أريق يالله يقيل بكنا يقيل وبضل أريق أريق بكنا بس يا أحباب أرجوه من نستا ما فريستا قدروا مساحكرا لو جركوا قيد بسواس برسالة عروس كعبي وسشا كيسان شيء دا الله بك إيقانيا لكن نكا أريق لجوغا ما أنتو نبوش وصدر وعريقا مدلجوغ حتى موسى عليه السلام عليه آد بقود علي من العلماء آد بقود علي لأن مركاسه يسيبوا كم بقى يا عريق إنه ورابا وكدفوا أي قيد وصيح لمن العلماء لأنه وحوك عي عريق يوم ماشي آلين جرين يوشي سيو ماشي آلين قولين markaasuu arigii doondoonay wuxuu ugu yimid meel dhir ah arigiioo daaqaya uu waraabihiina u shiday muuse haystuu sidaa u taagan yahay uu kurbaneefka ka weecato ku soo celinayo markaasuu nebi muuse yaabuu yidhi ma waraaba ariga i ilaalin kara sidee ku dhacdaa markaasaa haatif wuxuu maqlay dhawaaqiisa leh kullii kamaa uriidu akun laka kamaa turiid sida annaka aan doonayna haddaad muuse aad noo yeeshid sida adigu aad doonaysa annaga ku yeelay كتاب الفوائد بكبر ابن ذي الجوزي رحمه الله صدى أبدوني هذا بيش صدى أبدوني هذا أنا كأقوياء مخلوق أنا كأسخرنا بالكهية عالم أنا كأعرف كونه جل رسالة صوت تربية توصل كده من جل رسالة صوت لسان رجع نبأ يعد عليك قاجوا أتكسكرا سعدوا أتكسكرا هردلان أتكسكرا لغوا أتكسكرا يا دلعان هو أتكسكرا دحان هو أتكسكرا كليل هو أتكسكرا قبل هو أتكسكرا أيا هذا وحال الآن هذا درسي كان الله برا درسي روح لسامر كإله اللي مبرئ يقينت أيا الله برا يقينت نبتة محيتها يقينت نبتة وكجبل الطور منيا الأرنيا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وحقعت ملكوها ستمام حي وأشيدي وياك أرجع يا كمالك موطن وصوع إلى يجيتك
aniguna waan tiirsadaa manaafic badanna ushi way ii leedahay markaasaa lagu yidhi ushaada bal tuur ushii markuu nebi muuse tuuray calayhi salaam ilaahay waxa uu bedelay aabeesuu ilaahay u bedelay dadka reemiyu inta badan usha waxay u sitaan oo abeesada in iskaga dilaan ushi lagama dhigin kursi lagama dhigin gaari lagama dhigin mobile lagama dhigin waxaan dadka magaalada reer magaalku isticmaalaan lagama dhigin shayga reer miyigu inta badan ay ka digtoon yihiin inay ka baqaan ayaa ushi loo bedelay u orday soo naqaal geed ordaysa innii laa yakhaafu ladaya mursaluun kuwa agteeda laga dira ma baqan baa ilahay misaadu qolka aduu hadaa maqluuq marka hore ul bay ahayd ma dhaqaaqay abeese nool baa ka dhigi waxaad ogaataa nidaamka caalamka nidaamka ilaahay buu ku jiraa gacantiisa annagaa waxba bedelayna weeyaan shay manfacala haddaad aragtana manfacada ilaahay baa geliyey shay madarala haddaad aragtana madarada ilaahay baa geliyey dukaankaaga inuu manfaca ay ku soo dhex marto hadduu ilaahay doono weeyaan daawadaad isticmaalaysa manfaca inay hadday rabto inaad ka faa'iido waa hadduu ilaahay soo geliye weeyaan ilmahaagu manfaca inuu kuu yeesho haddaad doonayso waa hadduu ilaahay manfacada soo dhex mariye weeyaan biyuhu ogaanka inay kaa qaadan haddaad doonayso waa inay biyaha amarka ilaahay manfacada soo dhex mariyaan weeyaan amarka ilaahay waa qayb isha bini aadamku ma qabato bini aadamka ishiisu waxay qabanaysaa waxa mushaahadaadka ah dukaan beer daawo iskuul meherad shirkad ashyaa waxsay shaygu qabanaya laakiin amarka ilaahay baa ku dhex jira meel walba daawada manfacada ilaahay baa soo dhex mariyey rasaasu inay qof disho ilaahay amarkiisay ku dilaysaa dad baa raas barosaa loogu tiriyey oo haddana iska mawduuco socda maanta allah dhimashaa looga tegey maca daalika maanta way nool qaar bay xabada saas ayna ku dhicin oo kursiga ku dul dhimanayo kursiga dusheeda sariirta dusheeda ku dhimanayo تعددت الموت تعددت الأسباب والموت واحد بل أسباب الله لمن يوم بدل مويه لكن موت هو متكلم ملك الموت بقوف المروح لك قمنا مركي قبض الأرواح ملك إلى هاي وقدرتي أيوة ملك يا رب أضمانك إن ونحسن يعرض إليه سيقرن ما الملك الموت كيف أصابه هيك اللي قد الموت مركز إلى هاي المي أسباب بدل الله لتعيا سمين دون أيو عند بعض ماشي وصل لك بس ما بقى شيء قفل ليه ولا قلت كيف أصابها خلاص بعد شيء ضب قلتين جاري باجرين على الحمام قلتين في كلام عن سكري وقبل حبذوا بقى بجيب يسير كان كذا شو حاجة تبع عليه والله يستاجي ملقينا الروح ذكرنا تيمش الله صوري جنب مالي فالنظام كان النوم وغضاء وحي لا يكون قرية النظام غيب اللي غيب إيمانكم مركوا وحي قال يا مسلم أعطيكم قالوا وعلا قال الوحي يا مسيء وحي أركى يا النظر كلا مؤمنكم وحي مسيء وحي خبر كلا يا مسيء وقراك حديث الرسول ورك السماء لا ربابك مسلم كله قاتل وقلبك كشف خبرك السماء حالات كثيرة ساميان معها وعن عالم كالنظام كبدلي وإلهي جل وعلا ملبى أبارة ملبى برواقع ملبى علادة ملبى نبضة ملبى فقيرة ملبى غنية ملبى هنوسة ملبى هلوسة ملبى بوكا ملبى عاقبات غبا ملبى دمانية ملبى دلانية نظام كإلهي جل وعلا يسير وطلق العالم بني آدم يقول النظام كإلهي ما بدلي كريا ما بدلي كريا النظام من آدم من نظام كده هل كمسلم قال لك لو على ما يعلم ذلين إذا النبي موسى عليه السلام وعلى قصة يقين على النظر وعلى أركي السبة لرمي عبرية درسنا وشا الله صدق مريوش وشي لا تيرسنا يوم فعل كل شيء هنا يجي هيا لقني قال سوى حدبي سدنا وكبح سونو قال خذها ولا تخف أنا بغي بالغي أمرك أنا قاعد سنعيدها
waxaa u daliila amar ilaahayna ushu ay tahay mar allihii markii fircoon uu qasrigiisa yimiday ilaahay wuxuu ushaada dhulka ku dhifay aqalkii fircoon nidaamkiisa ushu dhifay badii markay yimaadeen ushu badda ku dhifta nidaamkii badda ilaahay ku bedelay harraad baa qabtay reer bani israa'iil ushaada dhagaxa ku dhifo nidaamka dhagaxa ilaahay bedelay waa dhagax bannaankan iska yaallo sida u balaasa oo 12 kiloog iyo ka soo baxaya ka waran markay qabiil walba markay biyahoogi ay ka qaateen ishoodii ka cabeen weelashiina ka buuxsadeen buu damcay muuse inuu ka tego qaadaa lagu yidhaha awrkaaga saaro markay reer bani israa'iil biyo u baahdaana ushoo ku dhifa dhagaxa dariiqiina 12 meesha biyuhu hadda ay ka dhaqaaqaan waa qoyaan baa lagu yaqaanaa laakiin biyahan halkay ka dhaqaaqeen ee geeg baa laga dhigay yaa doonay amarka waa buqcadda arlada ku taalla baa la yidhi ee hal mar keliya ceedda aragtay dib daba ceed u arkay hal maalintaas ceedda aragtay le buqcaddaas maalintaasana ugu dambaysay markay muuse iyo qoomkiisii badda ay ka gudbeen ilaahay badbaadiyey ayuu muuse damcay dariiqa inuu ka xidho markaasaa lagu yidhi may arrinku saa moodaysa maaha amarka annaga iskale adigana waa kugu badbaadinay waddadan isagana caalamka ka qabanayna uu kibrey iska socdo waa hal wado ayaa ummadna lagu badbaadiyey ummadna adduunka lagaga qabto lagu halay ilaahaasi caza wajalla qudradiisu maantadana way shaqaynaysaa caalamka waa qadiir calaa kulli shay laakiin culimmadu waxay yihiin qudradda ayaa ka faaidaysanaya maanta muslimkii iyo gaalkii waxaad moodaa ilaa man raxima rabbi mooyaane waa mushaahadaadkaa la aaminsan yahay mushaahadaad waxaa mushaahadaadka inaan aaminay u daliila muslimiintu dhulka gaalada ay u qaxayaan maanta gaaladii baa le war naga joojiyo naga qabta meel uma hayne gaaladii baa le war muslimiinta naga qabta qaaradan africa dadka ku nool meel uma hayne ayaa naga qabto naga joojiyo halkiisa lacag ku siinaa bay leeyihin daliil waxay u tahay inaan isku caqiide noqonay ilaa man raxima allah mooyaane inaan isku aragti noqonay waxay ahayd aragtida muslimku inuu muslimku yidhaahdo raaxada ilaahay baa haya amniga ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya hinada ilaahay baa haya barwaaqada ilaahay baa haya waxaan u baahanahay ilaahay baa i haya waxa iga maqano ilaahay baa i haya waxaanayse ilaahay baa i siiyey jalla wacala waxa iga maqano ilaahay baa haya walaalkay wuxuu haysta ilaahay baa siiyey waxa ka maqana isagana ilaahay baa hayo cid kale waxba ma hayso yaqiintaasuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam 13 sano uu maka joogay waxuu saxaabadiisa ka dhaadhicinaya laa ilaaha ila allah 10 sane madiine uu joogayna waxa uu ummadda barayay muxammadun rasuulullah sal alla alay wasalam qur-aanka maka ku soo degay 8 suuradood waxay ka warramayaan ilaahay cadamadiisa aayaadkan qur'aanigaas ee makiga waxay bayaaminayaan ilaahay cadamadiisa can ariiq aayaat alkawniya bay ka bayaaminayaan aakhiradu qur-aanka makigu inta badan ka hadlaya waxaa kaluu ka hadlaya qisas annabiyiin walumam ummadihii naga horreeyey iyo nebiyadii wixii dhex maray buu qur-aanka ka warramaya makigu waa laa ilaaha illa allah buu tasriiqinaya juzcamo oo keliya ayaa 19 meelood ilaahay ku sheegtay inuu arladii samada isagu abuuray yaa ku haysta wuxuu ugu soo celceliyey ilaahay waa ayuha albashar weeyaan ha kaa dhaadhacdo khalqiga ilaahay isagaa la keliyoobay abuurkooga amarka caalamka socdana isagaa la keliyoobay laa shariika lahu fii khalqihi walaa fii amrihi khalqiga isagaa la keliyoobay cid la sheeganaysa ma jirto cid odhanaysa caalamka waxaana ku soo darnay ma jirto amarkana ilaaha isagaa la keliyoobay amarkan isaga umaala alaa lahu lamru walkhalq amarkana keligii baa leh oo waxa adduunyada dhacayo o dhan isagaa faysaday fii cilmihi 13 sano nabigeenu saxaabadiisa wuxuu ku barayay maka laa ilaaha ila allah abubakar iyo rasuulkaasi fadhiya markay soo degtay xamaalata suuratu tabad yadaa
markaasay u timid maaragtaan islaantii abilaha bay tiri yaa ababakar aaway saaxiibka maanuu maanta maxamedi gabay igu caayayaa bay tiri uu naari u sheegay inaan ku dhacay haddaan arki lahaa maanta bay ku tiri dhagaxa ay soo qaadaan maskaxda basho ka siin lahaa bay tiri rasuulka abubakar garab isku haya sadas waa fogay markay sii jeesatay buu yaa rasuul allah mina ku arkay markaasuu yaa ababakar araggay aniga igu arki lahayd ba ilaah ka qaaday awoodaygu aragta male ishan inay wax aragto amarka ilahay bay u baahan tahay dhegtu inay wax maqasho amarka ilahay bay u baahan tahay carabku inuu hadlo amarka ilaahay buu u baahan yahay gacantu inay wax qabato amarka ilaahay bay u baahan tahay maskaxdan inay wax fahamto amarka ilaahay bay u baahan tahay lacagtaad jeebadda ku haysata manfaca inay yeelato ilahay bay u baahan tahay markiisa kam yaa lacag la maanta lacagtooda waxba u tari laha oo dawo kuna lacagtu daktar walba la geeya caalamka oo la yidhi inaad noolaato madoone ha bari sacaad iyo caradhaara cun dawo kuma hayno lacagtu waxba kuma hayo kam yaa lacag ilaahay siiyey bisababi akhlaaq xumidooda aan ummadda dhex socon karin lacagtu may wax tartaa marka kam yaa ilaahay dhaqaale siiyey oo awlaadooda ay ka halaabaysaa ka xumaanaysa awlaadooda kam yaa dhaqaale haysta oo ciriiri ku jiro oo isdilaya markay nafta garan waayaan meelay u baxsaan markay garan waayaan oo isdilaya waa gaaladaa ka mid a nebiga dhaaf ilaahay baa ahay maka markuu nebigu joogay sal alla alay salam waxa u badnaa ummadda kala hadlayay yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu madiina markii la yimideen wuxuu nebigu ka bilaabay hadalkiisii afshu salaam wa atcimu aطacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam laa ilaha ila allahu caqiidaday saxaysa muxamadun rasuulllahna caadaday saxaysaa caadada madiinuu yimiday hadalkiisu horeeyay wuxuu ka bilaabay dadow salaanta dhexdiina faafiya salaadu waa maxay waa isku duceeya nabadgelyadii ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo barakaadka ilaahay dushaada ha ahaadaan salaada muslimiinta la dhex mara waa isku duceeya weeyaan raximkana xidhiidhiya dadka baahanna cuntaysiiya habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo tukada jannada rabbigiin nabad baad ku galaysaan rasuulka madiina markuu yimiday waana kaa bilaabay qur-aanka madaniguna axkaamtuu ka warramaya xijaabkuu ka warramaya soonkuu ka warramaya zakaduu ka warramaya jaarka xaqiisuu ka warramaya yaa qiimadu xaaraan inay tahay buu ka warramaya dulmiga dadka la dulminaya buu ka warramaya zakada iyo sadaqada cidda ay ku baxaysa buu ka warramaya xashkii axkaamtiisii buu ka warramaya ubadka tarbiyadoodii buu ka warramaya dumarka xuquuqdoodii buu ka warramaya musaafirka xaqiisii buu ka warramaya ibnu sabiilka xaqiisii buu ka warramaya dadka diinta ku cusub sida loo tarbiyaday buu qur-aanka madanigu ka warramaya madiinat almunawara waxa uu nebigu ka bedelay caadadoodii buu ka bedelay caadadoodii buu nebigu u bedelay cibaadu u bedelay caadadoodii nolosha caadada waa maxay waa inuu qofku siduu rabo isagu u seexdo uu siduu rabo u cunteeyo uu siduu rabo u socdo uu dharkuu rabo u xidho uu ciyaalkiisana wuxuu rabo isagu uu baro uu siduu rabo u guursado uu siduu rabo maaragtana masaajidka uga baxo uu siduu rabo baytal khalaaga ugan usoo xaajoodo noloshaasi caadada ayuu nebigu u yimid caalamka inuu u bedelo cibaado haddaad seexanaysa dee sidii nebiga u seexo haddaad cunaynaysa sidii nebi maxamed u cuntee dar haddaad xidhan dharkii nebigu jeclaa xidho oo sidii nebigu u xidhanaya u xidho culimmada weydii haddaad guursanayso guurkaaga waa inaad waafaqsiisaa sunnaha nebiga sal alla alay salam haddaad safraysid safarkaaga waa inuu sunnaha nebiga waafaqaa haddaad ganacsi rabta inaad bilowdo culamada u tago cilm albayci washaraa ka bara masaajidka cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa suuqa madiine intuu galay buu ku yidhi ganacsatadii buu ku yidhi laa yabic fii suuqina haada ilaa man tafaqaha fi ddiini suuqa yagaa nin wax ku iibin karaa ma jiro ilaa nin miskiinka nebiga intuu yimiday cilma albayci washaraa soo bartay mooyaane noloshii oo dhan baa la bedelay mar keliya caadadii baa loo bedelay cibaado kii guursanayay sunnihii nebigu waafaqsiiyey ilma hadduu dhasho sunnihii nebigaa la waafaqsiiyey
tarbiyadii ubadka tarbiyadda islaamka laga dhigay jaarka xuquuqdiisii calaa tarbiyat alislaam bay noqotay muslim ilaa magaaladii madiina mujtamacii ku noolaay oo dhan oo noola mujtamac mu'mina oo muslima mu'min qalbigiisa iimaan ka buuxo oo ilaahay garanayo aakhirada iyo jannada iyo naar garanayo ku xisaabtamaya muslim oo hoggaansan 24 saacadood oo noloshiisa min dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa diinta islaamka ku camal falay ayna nahnu min hada maanta nolosha badan adiga joogtaa maanta waxaa noqonay weel maran afka kala hayo oo dhaqan walba ku soo dhacayo dhaqan walba ay nagu soo dhacayo انظروا مجتمع المسلمين في عالم كجوة اسكدا دلكينا اسكدا ارض الحرمين مكية مدينة الهيرو دي والله غيره ما انت الرجال بس مغيره والله يا درك واسع كل بعد ما انت حاج كده وانت نقول جونا عيال مeel supermarket alaab ka iibsanayay baabuurtii waxa ka soo raacday dhalinyar suuq la gaagama wadato waa makka waxa joogo ودريج بوتي ولا سعودي بعيدون يا شيخ حسين ها والله وصل ما سوى قالوا ايوه عرب سعوديين وهذا قال كذا ومكاويين ولا ورعقت كده لا تيما اقول مكه منهم موري مكه ما شاء الله ما شاء الله وذا قالوا حين لي مني معنا يا مني شغاب اقول هذا شيء بيقول انا مركز اقول حين لي noloshana aad ku nooshiin imika ininku anagu sagaashanadii bay reer Jabuuti soo dhaafeen surwaal gaaban oo la qaato sagaashanadii baa noogu dambaysay ka dhaw sidoo ma ku dhiyay laakiin dukaanka iibinay baa nagu yiri wala nabadilay waa ninka dhalinyarteedii waa ninka u jeeday تباها نصلاة سيروح الرسول دمرك منه الغرب وسيتل الغرب ما ترى رسومه بعد دمرك شلون بعد لقو يا سؤال قابل أول شيء بابو فوقنا ميزك ما كان بحي بوم بعد ما كان بحي ما كان ولا جوا تغيير مسلم كي لدوني إنه عالم كبدله أيه يسقي اللي بدله يا ولي بينك ودل كيني جوجنا أيه رجال بيت كنا بدله يا مانت لأنه وين أفكر الحياة توه بكون عيا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بركة المسلمين كدر عليهم حياة الأغيار بين سوق شمال يهود والنصارى من كيرا إلى كيوينا بركة المسلمين تولي يسلكوا إلى قرقار إلهي قرقار كيسا هي نحريس إلهي هي بركات السماء والأرض بعين تبع إلهي وحكوا على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام دين با إلهي ربا دين ولا دين نولشة كم وقت دين دتك اسكش كتاب ما هو حل ضوني مسلم هذا القيس مسلم يعني سعود قيس مسلم يعني عروش قيس مسلمتها دقالي قيس مسلم يعني وقت قيس مسلم يعني ما ضوني أنا وضوف مسلم صدق دقالها مسلم دقالها مسلم هو معي دقالها يقال مال إلهي ورالك هاي كوب حين ماي على شيء ذا وعلى هاي حرمي قليل ما حلال مرض بنون حلال مرض وعقوا علم ولا علماء مسلم وحلال ربعين توبت جنا مفك مسلم توبت هاي مفرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن يربع وش خنجر خراش كوكير جرا خراش عنده كان عتدي أبو بكر وكبري markaasuu yidhi awal waad i weydiini jirteen maanta hamaad i weydiisayaa khaliifata rasuulillah markaas warwarun xaggeed ka keenta maanta wuxuu dhihi zaman jaahiligii baan qolo u faaliyo faalkayguna maba hagaagsanayne oo shaqaayad aan ku lahaa bay isoo siiyeen oo cuntada kaaga soo qaadin farta intuu abubakar afka geliyu iska matajiyo biyuu ka baday uu matagay uu ku celiyo
يا أبا بكر لقمتي ويكسر عليه جوجي بالغيري والله ما كنت أرتي يقول هذين لقمة داس وح كملة أي عواش إذا كنت باقي نقول لهاي وأي الصوب بحدين إلا نفتر الصوب بحدين مويانه مع النفتر ولا سو ساري لهم مع نوع حديث يا نبي محمد مغلي كل جسم نبت في الحرام فالنار أولى به جلد كستو حرام كوكرا نار تاو حق لو عند دوت ما نو هذا النبي محمد كم مغلي أي اللقمة حرام أفكر عواش كويس عبادة بدني ما ها صلاة بدني ما ها صوم بدني ما ها قرآن خرس بدني ما هي حج بدني عبادة بدني دوا محل وحلال قالوا غف نقض غف ورع اتق المحارم تكن أعبد الناس برسوله إلهي كحرمك كدر وما هريرو ذاتك نيك أقول عابد سبا نغم برسوله أقول عبادة فعلا على الله الأصل حرمت وحكذا جني وإيمان على المسلمة حق الناس كان نظيف وين وحل وجهه دقالة مسلمة لو بهيها دقالة أقول نقول دقالة مال في عقبها بس قبيلة عصبية قبيلة عقبها أو قبها يقطع إلهي مصاريف تغيرك مساجدك قرآنك معلم قرآنك علماء النفقين تودا هي ذلك دينته هي قرابة هذه هيك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وحوي إنك جعل إن أرزاقات الله بركايو والله بلاريو عمرك سنة الله ديريو رحم كيس راح اليوم رسول صلة الرحمة تضف إليه هي عمرك أنا والله ديرين أرزاقاتنا والله واسعين القبالة أي وحوي يكو أي حيستان يكون يسوي ما وحي سعوني حبرت نيده ما وحي يعوني ودقنا مركب وسيد من اثنين وينادوا سكرات وغدنا وحا بانك ويا ايغي سو دردار ما بلين ايغي وحا ولا بحال يد ايغي وحا يسلا ايغيس وما كان دلين ميا اسمه ما يقانا سيدين تمن هدي غاران المها دلين اسمه ما يقانا لا ولا سنه الرحم لا سنه الرحم كالايمان كاك سلام لماذا وضعت ايمانك يا وتصله الرحم marka waxa la doonayaa walaalayaal islaam baa ilaahay muslimiin baa ilaahay naga dhigay inay diintaasi ka shaqeeyaan laabteena ka muuqato laba shay baa u sabab walaalayaal in la helo dacwad iyo tacliim in la helo dacwad waa maxay dadka muslimiinta masaajida loogu yeerayaa ziyadatan iimaan baa loogu yeerayaa masaajida inay amraan baa loogu yeerayaa salaada jamca inay la tukadaan baa loogu yeerayaa qaflada inay ka soo kacaan oo majaalisa dhikriga ibaadiin baa loogu yeerayaa dadka gaaladana iyagana islaamnimada loogu yeerayo dacwada المسلمين لoogu yeerayo waa maxay ila ziyadة الإيمان ila تعليم الدين ila تعمير المساجد ila المسجد ila الصلاة ila طاعة الله ma loogu yeerayo muslimiinta ila تمسك بالكتاب والسنة loogu yeeraya gaaladana islaamnimada loo bandhigaya iyaga لكن نصيب در ما أنت مسلم كأني بضيع عنك. دري لا يا نم فرنسيسا يا جيبوتي سو إسلامي. وكو سو إسلامي با قبل بمرجع عاشقي وقبل دي بدوني يدا نسوا واحد إسلامي ما دبل. لكن قبل دي لسيء لو مهرية لو أن الإسلام مسلمين هيا مرجع قبل دي أنا بقول دي أرسلوا ربعين ولا وريبو هيا الأودي إنت دليل كويري de hal maalin ahaan baad masaajidka aan ku kulannay waana islaamta wayna keegi baa tahay deena wuxuu yidhi masaajidadiina waddankiina waana eego marka la addimo buu yidhi salaada la addimo masaajiduna dad baa taga dadna dibadday ku hadhaan weliba dadka dibadda ku hadhay baa badan marka muslimka masjidka tagaya anu kuma beerine kuwa dibadda ku hadhay ku beerahay إني كان رفيع ساجدين وعمرتها الله يجزيه مركب مسلم ما تحال في سواء الناس مسلم ما ضيع
muslimkii baad arkaysaa xataa qaarkood salaadii baa ay dhaafayso weliba magaalooyinka waa dadku abarooyin miyiga markii loo baxay jamcadada lugeeyeen qisooyin cajiibay soo arkeen غريب وده 60 جرع وحتى أنكرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاته كذا لقى يا جمع إلى عيدات كذا بس إلى المسلمين صلاة كتجان محاكمة وترك الدعوة إن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قف مسلم بلا صلاة لو هي محاكمة دعوتها قائمة ويكون دينته إيمانك ويكسبنا أصحاب الرسول ويكسبنا إنك الإسلام مدني إيمانك وكنا لنا ما أنت وأنا مسلم أنا محل يقرب وأنتوا كذا محل يقرب صلاة نبي علماء دليلين وهل قديت أكبل مثلا سؤالك كل ما يا ولكن ما مرسا نبى يدوان إسلام يا نقال بتروان إسلام ربا هل قال لوجا بلام سوق بيسوق شهادتك الله لقني معك وعيقا صلاة تكو سوما هدي ويرا مركو صلاة دي تكذا إذا سو دينتي كمان معال أورم باي حدد بلو بدوكتر بلا هل قاعدك نن مال قبينا ننوي بد الشيخ وحوري بال بان بكارها كفرتي فمل لعق بدن باك سو غليسا وفان امنا نباهنا هو دين له ان يرو ودا دين له ورالka lacagta u dhiibtay isoo doondo marka nin buu qabto uu geeyay ninkan balwadna male sigaar ma cabo waana saaxiib diina waa khayr badan yahay waa la nuzaki ala allah hadu markaas man ahlu diina aw ahlu diin inuu ahlu diin yahay maxaad ku kaantay gudadi ku keento ku gaartay dashata waqti miskiinka ku tukadaago كشيء دقيس بعيد دقيس شد وقتها وحول ورشد وقتها ولا تكلاي إنه أهل الدين يعني كان محات قدرات يقولوا شيخ شد وقتني كان مسكين كنت كذا هاي واللي بسفك هو حق المديك كنت كذا واحد لو شيء واحد لو معك دون يقول صلاة الصبح وقوار كان مسكين دينتي سيدنا يدوح كسوك وبها صلاة دوتو كذا معناها الصلاة دوحة إنك مريسا ما أنت إنك هلقى دينتي إنه أي وقل ضب يسيكم بمحطوط مسلم جديد يسوى إسلامنا وعلينا يهديه وينادو سوى يقمد أنه مراداتو كذا ماي هذه صلاة دي وابلوغي صلاة دي الإسلامي وابلوغي مسلم كي جديد كينا وحالينا صلاة وحي كوتا بلو مسلم كي قديم كينا وحالينا أي مربع دوتو كدو دينتو وحيسنا وعين علماء ليه أركان الإسلام شنت الركون أركان الإسلام والركن شاهد كان يبقى سديد دار ركن بار هي نحن نغم وقتها سديد دار ركن محي هيا سقف جيبي هيا نبقى بوس بوليه ساس ديبو سمي شن ركوب كتاغن اقل كان مو بلابين مسؤول دمستر بلي شيء ولا لا غير كما صورر كرا روب ما كعلين كرا قرح ما كعلين كرا مي اقل كاسوح مريا بلا مسدمات بلا مريا وعلى علماء ليه بني الاسلام على شنت اركان الاسلام واسلام لماذا بهيام رسوله هيا شنتني دين دي اسلام كي حجني يعني هيا اسلام لماذا مركب وامحي إلا شنت أركان الإسلام وشهادتينك وصلاتي وزكدي وصومكي وحجكي شنت هذا الله يمننا وعو نبي وينو شيغا يا حديثك سفي عنه معلومات سواد هيسار ودقت قناه بلغا يا بقاركينه انه شنتن تيري اي دين دي اسلام كلا دول صار اسلامنimadi haya idan islaamnimadu waa maxay marka shahadateynki waxa uu nabigu waatiir salaadi waatiirki la zakadi waatiirki saddexa soonkiina waatiirki waa rugga afra xashkuna shanta maxay haya marka buniyal maxay haya islaamki bay haya islaamki marka waa maxay
haddii la yidhi shahaadataynkii islaamnimadii bay haysaa oo salaadii islaamnimadii bay haysaa oo zakadii islaamnimadii bay haysaa oo soonkii islaamnimadii bay haysaa oo xajkii islaamnimadii buu hayaa islaamnimadii waa maxay innakana maanta waxay naga taagan tahay war waan tukadaa yaa rusoo muslimiin maxaa laga rabaa waxay leeyihiin culamadu xadiidkan yadullu cala ibtidaa bunya alislaamu calaa khamsin wuxuu na tusinayaa waa bilow weeyana dhammaad maaha xadiiskan wuxuu na tusinayaa waa bilowga islaamnimada waana bilow bunya alislaam waa asaaskii waa seeskii hooseeyey iyo tiirashii weeyaan waxaa kaluu nebigu sheegay bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq buu nebigu yihi aniga waxaa adduunka la ii keeno la ii soo saaray akhlaaqda teeda wanaagsan inaan nolosha bini aadamka ku dhamaystiro itmaam dhammaystir war aqalkii halkuu marayaa dhammaystirkii buu marayaa maxay markaa ninka hawshu ku jiraan ka dhigan tahay daaqadihii buu gelinayaa barbarkii buu samaynayaa biyihii buu gelinayaa laydhkii buu kusoo taglaalayaa gogashii buu soo diyaarsanayaa eridadii buu u gelinayaa dhammays aqalkii finishakii baa ku jiraa finishakii rajigii buu marinayaa waxau nebigu inoo sheegayaa labada xadiis eega hadda xadiiska horena waa bilow waa halka diinteenu ay ka bilaabanto xadiiska dambena akhlaaqda weeyaan islaamnimadu akhlaaqda waa halka islaamnimada ku dhamaystirmayso waata saxaabada rasuulku caalamka markii dambe ay ku qayireen ee dadkii adduunyada joogay ay yidhaahdeen islaamnimadaasaan u baahanahay waatii nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay ee quraysh oo dhibaatadii nebi maxamed ee saxaabada ay ku hayeen la yaqaano afarta dhinac markuu ciidan ka soo geliyey quraysh oo dullaysan ayaa nebiga hoostiisa timid markaasuu nebigu yihi maxaad u malaynaysaan maanta qurayshay inaan lanigu samayn doono maxaad u malaynaysaa halkan bilaal baa jooga halkan camaar baa jooga halkan khabaab baa jooga raggii halkan abudar baa jooga halkan salmaan baa jooga halkan raggii magaalada maka kolkay muslimiinta ahaayeen dhagaxda intoo la duldhiga la cadaabi jiray oo cizi iyo sharaf iyo karaamo nebiga ku agduuga sidaa wada cadhaysa saas haddii nebigu maalinta odhan lahaa kurka ka wada jara waa ka wada jari lahay markaasuu maada tadunnuuna anii faacilun bikum maxaad u malaynaysaan maanta qurayshay inaan igu samayn doono suhayl binu camar baa hadloo yidhi khayr baan malaynaynaa anagu khayr un baan rajaynayna waxaan u malaynaynaa oo rajaynaynaa oona tahay walaalkaygii wanaagsan ee deeqda badna ee dulqaadka badna ee naxariista badna uu walaalkaygii wanaagsan anagu noo dhalay baa tahay markaasuu nebigu yihi laa tasriba calaykum alyawm yakfir allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin sidii nebi yuusuf calayhi salaam uu walaalihii uu ku yidhi maanta laynaga argoosan maayeen ilaahay dembigiina ha dhaafee waan arxamu raaximiin ilaahaye sidii nebi yuusuf walaalihii uu ku yidhi maalintaas ayaan aniguna inagu leeheen iska noqdo aqaladiina ku noqdo rasul xor baatiin iska noqdo maysan noqone kulligood halkii iyagoo taagan bay idhahdeen ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh ida jaa nasru llahi walfatx wara'ayta annaasa fatxiga culimmadu waxay idhahdeen qulubtaa ilaahay soo jeediyey makaa ilaahay nebigiisa u furay dadkii nebi maxamed cadowga ku ahaa ee la dagaalamayey ee ku dadaalayay nuurka ilaahay inay baktiyaan ayaa ilaahay qalbigoogii furay deedna markaasaa nebiga lagu yidhi wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja waxaad arkaysaabaa nebiga lagu yidhi dadkoo diinta ilaahay afwaajan u soo galaya war nusraddu walaalayaal iyo gargaarku maahin sida dadka qaarkood ay u malaynayaan nusrad iyo gargaarka ilaahay waxa weeyaan waa qulubtii xidhnayd oo ilaahay xaqa u jeclaysiiyo oo tidhaahda annaku islaam baa nahay shareecada islaamka doonayna xilligii xajaaj ibnu yuusuf oo ardulxijaaz uu ka qaatay cabdillahi ibnu zubayr isagoo safara ayaa dhinaca carabi reer baadiya isku yimaadeen markuu ka soo markii kuufa loo wareejiyey markaasuu u yimid oo wuxuu ku yidhi xaggee socotaayo dariiqaasan wadada heli gaaban marayaan buu ka yidhi
markaasuu yidhi xaggeed ka timiday oo waxaa ka yimid ciraaq iyo xaggaasoo reer ciraaq oo kufo markaasuu ma taqaanaa ninka ciraaq ka waaligaya loo dhiibay oo haba naqaanaa buri nin xajaaj bin yuusuf la yidhaayo daalima oo faajira oo faasiqa oo mujrima kaasaa meesha xukuumada oo hadda maal uu joogo kaga timida waddankiio markaasuu maya xajkuu tegayaa baa la lahaa buu ilaahay kama aqbalay waa xajaaj yuusuf sidaa ku leeyahay ninkaas markaasuu dee xajaajka aad sidaa u caayaysa dee waa aniga dee aday kuu taalaa buui xaggooda samee adiga qaadi buui aniga daalim baa tahay rashuun baa tahay daluun baa tahay yaa mujrim baa tahay waxale wixii dee bini aadamka lagu odhanayo dhan buu ku yidhi markaasuu yidhi intaana ku delin qur-aan baa ku weydiina qur-aanka wax maga taqaana markaasuu wixii ilaahayga maray baan ka aqaana bal akri buu ka yidhi idaa jaa nasru llahi waalfath wara'ayta annaasa yakhrujuuna min diini illahi afwaaja markaasuu qur-aankaad ku ciyaaraysa ada may dee waa saasaan u aqaanaa waan akriyay ku celi wiilo ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا والمحل هذا يقولوا الآمس بالقرآن أنا أخبر إن مركز بالآخر حجاج بالآخر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لزمك هذا ما هي بالتاس تيانا نؤخر لي بزمك هذا زمنك أتشيء آياتنا أتشيء وزمنك النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر يا ويان زمنك تدكو أيدينت أفواجا نصو قليين أما هذيك الزمن كاغا حجاجو تدكو دينتي إلهي بكم حيان بكم حجاج مركا روحه وحيستيرك والبا إشارو برج قعنتو برج ودو سدا إلى الله السماء كدغت بدشو يربر هدوش اسكو قبط waa wax sameeyay ka dhigata mid madaxu yarbaray haduu madax sayda waa qoorta ka gooyay marka xajaaj marka ishaaru bixiyay marka saas weeriyay waxa ka dhigata qoorta u dheereeya hal mar kaliya ninkiina labada dabnood u dhaqaajiyay waxa ka dhigata marka baxbo akhi saga garay wuxuu akhi ninkii marka seefta soo qaatay la rabay inuu ninka عربي أو قرطة كجر لوجو تلاقي هو حلا قيليا أو سيد قريق أو سيد على نفطه كنعم مركز الحجاج نكي وقص وبلو وحول إلهي بقبول داريه دعاء أنا دورة دعاء أنه أخر ذي سكت من سوى جست دعاء أنه أخر ذي أنا أقول عليه وكل نبت قليلين أسنبت قليلين مركز الحداد هذا وحيسة عيدا إشارك ولا شقينيا أنا كنا وحان يسنى ربه يعلم ما في الصدور إله وحان يسنى والعلاقة لا لنا هي عربك أنت أنا كسر سارين الله برقة لا بتيري وحب جريقا أزدينه أي أزدينه سلام ورأيت الناس يدخلون في دين الله قريش ودن عن بكرة أبيهم إسلام ماذا يسوق له عمر بن وهب النبي قوي مدوي هذيك صفوان بن يري يا نبي الله هل نبت قليل وأن آمن وأن نبت قليل نبي يربوكي بدو سوق على سوق ربعين وقوي ما دو صوت الله بحاجة يمام هذا الرعب كي حقيقة راعة سوينا هذه الشيء ما دونيس تو دين كاجينا عني قاعد يقول صارت وبد كاجينا عني قاعد يديبتي أي دين دين محمد عليه الصلاة ما أنت من عند شوتي بدي كريم مرقص لما يعلم جئتك من عند خير الناس وأحلم الناس وأبر الناس وأوصل الناس عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك هذا يرنيك أكتي سأل كلمة ما قرن يسكوي يا حي ضدك إلهي أموري كيف أقول خير بدنا ويا محمد عليه الصلاة والسلام أقول بار السنة أقول نحرس بدنا
ugu dulqaad badnaa ugu xidhiidhin fiicnaa kaa agtiisaan kaaga imiday adeero lagu dili maaye iraac markaasuu calaamad ka soo qaad maxamed aan kugu raaco hayaysuna dhoofi faraska intuu ka soo qaatay waa xeebtii wuxuu maraya maaragtan ayuu nabigeena ugu yimid maka yaa rasuul allah waan arkaa adeerka safwaan yaa calaamad buu yidhi nabiga ka soo qaaday calaamada sii go-ii markaa nabigu sitee madooba ee degtana uu ku sitay uu marna cimaamada ka dhiganayay intuu nabigu iska soo qaaday buu nabigu yidhi warkaa go-ayga iyo tus buu ka yidhi waa go-ii nabi maxamed yaa ka sharafada go-iisa hal nin oo gaala islaamnimadiisu nabigu go-iisa u bixiyey innagana maanta muslimkii nala dhashaa dayacan muslimiinta hanugu yeedhno masaajidda salaada hanugu yeedhno khayrka hanugu yeedhno cibaadada hanugu yeedhno wakti bixiya dadka haddii la yidhahda maanta ayay ku leeyahy dadkan iyagaa diin uma jeedaan wadaadahana daalinina go-isii buu u yimid adeer waa ka go-isii waa go-isii weliba 2 bilood baa kuusoo fasaxa qaaday buu kayidhi 2 bilood 2 bilood diinta lagugu qasbi maayo markaad iska joogi waad eegi doontaa 2 bilood islaamnimadu waxay ka dhigan tahay haddaad doontana waad islaami haddaad dootidna markaasaa lagu surayn doonaa adiga inaad nala joogto inaad naga gurto ila gaalnimo noran maayo salaadii casar buu soo gala maka nabigu tujinaya calayhi salaatu wasalaam markaa musdultaagu saasuu yaa cumayr buu ka yidhahay maxay samaynayaan markaa salaadii bay tukanayaan casar ma muxamed baa tujiya ha muxamed baa tujiya calayhi salaatu wasalaam السلام عليكم نبي صلاه وكبح وصابع يا ابا وهب انزل بوكي يا ابا وهب فرسك كدغ ودادع واسكفر يسبوكي فقاس بدادع فرسك كدغ مالي براد ماذا محمد وصولي منك ها انا وصولي ماذا يجي لما بلود وامن ها لما دي بلود لما كوكو درني افر كدغ يقول لك سوى دادع بوكي رسول ده شيء الشاشه وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة فرسك كذلك فريس وفريس يا عمر كحي عمر وكحي عمر وكحي عمر بالواد أغل قيسي جي عيال قيسي نوصور لي أغل كوكوكي أصحاب تيدنا أولا إعلامي وحكتنا على أفرق ربا للسياني كاسنا مقنقليو قال لي مركي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حديثينا عمر بن وهب بن صوك حيا صفان بن أمية أي النبي أكتسل رسول فريسيا مركي صلاة وتكنيانا دبوا قبح حيا حكا دمتون من الصلاة والضوء جهاد مركي على محاي مركي النبي يقول صفان وهي سلاح في عم بالهي سلاح عادي حكون دقال قلق ما ذي ديبي بوكي مركي سوري مقصب بقى مسوا سمان حب بدك قارصة مسوا سمان ما هو سمان هذا إسكاله ولي بوكوسو علم دونا بوكي وهاجا بوكولي أوكي هذا أنا أقول لك راعي كور من دون دين راعي في عنده برجع يقول هو راعي وطلبه حتى غزوة ده وحوبة قيد وطلبه سدح غزوة مياه بسنة ما غزوة أي نبي يقول راعي قال لي هي طلبه لذات قال لي نبي كمرة سود ولا غزوة هناي مركي laga soo noqday ee qaniimadii xoolihii gaalada laga soo helay magaaladii Makka dhinac walba laga soo geliyay laba buuro dhexdoodana waxa dhex socda geel iyo lo'od iyo arigi sida uu circiray ayuu Safwan bin Umayya sida uu eegay raguna waa iska xoolo jecel yihiin goobta sida Soomaalida way goobta saas uu eegay geel horutu weer qaniino wuxuu waxa soo dhaadaan ilaahay markaa uu nabigu leeyahay ya aba wahab bukeeyo markaas labbayk ya Muhammad bukeeyo أيعجبك هذا؟ لبدا بورد حولها دح سعود هذه المسيلة بالكورن والله في عنيد هذا اسكال حيسب هذا طلب لبدا بورد دحدو قيلي لودي أريقي فرده بقشي يا له صفوان بن أمية اسكال كعيسى قالت عيدكم قيمة سبتت هذا لا استعمال ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس النبي يقول والله نفسنا وحق عكرتها من جرته إلا نبي كن جرته موياني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله
ragga xoolaha inta la ku islaamayay hadday bil nabiga la joogaan oo la yiraahdo adduunyada waxa yaalo oo dhan ayaa lagu siinay diinta islaamka ka noqo ma yeeli lahay ma yeeli bil hadday nabiga la joogaan ragga lacagta ku islaamayay ee geela ku islaamayay ee dahabku nabiga ku islaaminayay waa mu'allafatu alqulub ay hayaan bil kadib haddii la yiraahdo adduunyada waxa yaalo oo dhan baa lagu siinay diinta nabi maxamed ka bax haddii la yiraahdo كما يبحر بعدنا وحنا شاقة يا مسلمين ضعفاء الإيمان إسلام لماذا ولينا ما يدوح عند أفسانيا الهنبوري يبيع دينه بعرض جماعات رجل وتياكم بعد وحوت يدا قلنا حياة صوت السودان يو كينيا معي كاكوما يا سوكاكوما معي وضيبا ويمد الجماعات قالوا هذا رينا كيجي بقالوا بيوردوا بيكالي يجارا بريبا لوغير حفيزك قحوتيغا او مغعيسا لوgu soo dhajiyay waxana shardi looga dhigaya fiisaha wadanka uu ku galay dhulka gaalada in la siiyo waxa shardi looga dhigaya in kitaabka ku doodo quraanka odagiyo lilmayna ya jamaacadu hada riraa maxaa dhacay إن الجيبة يردوبية دركوا رددوا سارية كلا يجار بس جماعة دي أنت صور راعي وده جيبة كده ده أنا كأوجل أنا أدوس كجوب مركز أوجل أنا كي أنا ولا فريست السلام عليكم صور جماعة جمتي اللي جت من دارنا لا شيء أبا هاي بيقولوا قالوا بيا صوبا بس كجرنا يا نقول أنا ما قالوا بيقولوا الإسلام ما تقال بيجا كهستاج واحد قالوا لا سمي ليه نيتكم ما سمي ليه ممكن ما يسوعني ساتس وما يسوعني سعر وحنا يسمي قليهين ها نيد جماعة بود يقدر براد بكو قارة ياي إسلام لماذا هوستا هوستا شيخ هل كان زمان المسلمين تقولون يبيع دينه بعرض والله ثم والله نبي محمد عليه الصلاة والسلام كل يافر بقول سنة كهر وحي والنبي والشيخين ودن ما أنت وين ظاهرين عرض هدان علماء وحي هدان دعوتك الشقيق أفر فائدة مسلمين تهلا هذا الكون نقول لي وصوغا منه فائدة كوبا مسلمين تدين انت كهيستا إلهي دين استقامة يقصين وإحنا نقرر دوبو دين تكبح على هذه الماجد باب الردة إلهي نكحل والجوكسين يا مسلمين الباب كلمات اللي نوفر يا متقانا دعوتك شغيل عصادة مسلمين تكوها معاصدة يا كبائر كي بالودة كلها جريه كلها خليغا باب التوبة إلهي أفر يا يكون ويتوبت كان يعني في المخدرات كي يبيني كي خمرك عبي كي بالوديسنا كي عاقل والديكها كي دبعتنا بدنا أيضا أركد دوتاني سوغن رجس إلهي بدلو مسكين كسوغن طيب مسا تصدحات قال هذا عالم كنول انت إلهي هدايته وقلت لك علينا باب الهداية إلهي وفريا باب الهداية ورأيت الناس يدخلون بين البيت وين سعة من تعالى فأفراد مسلمين تهدي دعوة قاتل تدارك الدين تأكعا مسلمين تنعز يا شرف يا قرب وسعنا يعني يا موافقه هي من نمدو دي بقى إلى هاي سوء علينا يا قال لي وحي قال الله صلى الله وصفه لي يا صادرت ددالك الدين كل جيل حلم بينك صار ددالك الدين إن شاء الله بهذا الدين ددالك وربعنا إن شاء الله يعني هو إن شاء الله إنه دين ددالك